gabar yar oo dirir uu dhalay oo ku yiri orodoo aabba hurdada ka toosi. haddaba maxay fashay gabadhii yarayd? inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tiri hanoo sheegin. waa weer warsamo u cusub oo caruurtu ka hirgelisay magaalooyinka. waxa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed Deeqa oo inta soo oroday gabadhii si xun u dharbaxday. markaasaa dirirna ku toosay ooyinteedii. markii xaajadii lala socodsiiyey ayuu dirirna markiisii gabadha ul soo qaatay oo laga celceliyey. warsame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee uu waalidka u yahay dartiisna sida xun loogu canaantay. duq warsame waxa caado u ahayd markuu la kulmo waxyaalo shucuurtiisa saameeya farax iyo tiiraanyaba uu isla markaasba ka yiraahdo murti goloka taaga. maalintaasi marka waxa uu u tirshay gabay uu waana ahaan ugu jeedinaya Deeqa. wuxuuna yiri Deeqay imaqal shay yar baan kaaga digayaaye. dirir toosi gabadhaan ku iri oo diiday hadalkayga. in dartay wax loo yeelo waa dow xumaan qabane. digniintiyo waxa kaaga filan doofya beenaade. ilmahaaga dulunkana ka celi daqarna ha u geysan. dib bay uga xumaadaan qofkii dilo waxnaan barine. mar ay kuba dulloobaan waxaan laga dareen qabine. dembigay falayaan ha arag oo da'dana fiiri. daa'inkayba dayn uma qabsada dulka sabiga ah. cabaar ayaa la kala aamusnaa. kadibna Deeqo ayaa raggii quraacdii u soo dhigtay. dirir iyo warsame quraacdii kadib waxay isu raaceen suuqa. Deeqana waxa lagala dardaarmay hawlihii kale. maalmihii warsame magaalada joogay waxa u kordhay aqoon magaalo. wuxuu tagay meelo badan. wuxuu arkay waxyaabo kala duwan. laakiin wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayaan is arag ilaa maalintii magaalada ay soo galeen kadib. warsame wuxuu maalintaasi u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uu ka heli doono. waa suge markii magaalada uu yimid waxa asagu uu ku degay guri uu leeyahay wiil uu dhalay lana yiraahdo Muuse oo qaba naag cadaana oo la yiraahdo Maria. Muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyin isagoo yar ayuuna dalka ka tagay. intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka soko wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisii saamaysay. Muuse wuxuu tala ku gaaray inuu halka markaa wax marayaan kala qabsado. sidaa daraadeedna xaajadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeediiba. sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeye soo guursaday. Muuse wuxuu isku tirshaa nin la socda nolosha casriga. wuxuuna ishilmaansiiyaa amaba dhaliilaa bulshada uu ka dhashay ee ku hareeraysan iyo dhaqankeedaba. sidiisabana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyadooda taabta iyagoo aan ka fiirsan ciribtooda dambe. Muuse markii uu Yurub tagay ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah. dibna uma jaleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin. isaga iyo xaaskiisaba markii aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa in ay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda. Muuse wuxuu isu keenay Maria oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan iyo nolol aan waafaqsanayn kuwa Soomaalida iyo waa suge oo ah oday 60 jir ah intaasna miyi ku noolaa dhiigiisa iyo dhimirkiisuna la shaqeeyaan dhaqanka dadkiisa. waa suge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisu uu dibadda ka soo guursaday naag cadaana wuxuu ku talami jiray mar walbana isweydiin jiray talow sidee naagtu u eg tahay. af Soomaaliga ma taqaan mise afgaal kaliya ayay ku hadashaa. maxaase idin kala qabsan doona haddaad aqalkooda tagtid. isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse. wuxuu gurigooda ku soo beegmay goor galab ah. Muuse iyo Maria oo inta surwaal gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska. markuu albaabka soo joogsaday oo la iswada arkay ayuu xishood odaygii dib ula laabtay oo isiri bal u kaadi intay naagtu dharka ka xiranayso. Muuse ayaa Maria ku yiri qofka ilinka soo joogsaday wuxuu ahaa aabahay. isla markiina wuu u soo baxay. Mariana way ka soo daba oraday.